laydhkan waxaan iska jiray marka 5 bilood ka hor baa la iga gooyay waxaana la iga gooyay marka hore $9 bii soo qori jiray laydhku muxuu ahaayay $9 laba laambadood oo mid gudaha iyo mid banaanka ah ayaa aniga isnaan jirtay qasaalad ma isticmaalo bahashi ma isticmaalo waxa ma isticmaali jirin waxa ma isticmaali jirin kadibna markii bishii ugu horeysay 5 la igu soo qoray bishii labaadna 5 la igu soo qoray oonte laba bilood oo $50 aan wada bixin kari waa hooyo iska dayano magaalada Berbera ku nool laanahay sidii baan markaa aan iskaba gooyaba kadibna saasaan imankaan ku noolahay bilaa laydh booqashada iyo xaafadaha magaalada Berbera iyo soo aragii dhibaatada halkan taala waxay saameyn ku lahayd noloshayada mar kale ayaanu dib ugu noqonay qoysaskii danyarka ahaa aan la soo kulanay si aanu ugu ducayno uguna soo celinno laydhka weliba annaga oon ogeyn cidda ka bixin doonta bilaha dambe lacagta lagu soo dallici doono kadib markaan ka bixinno deymihii hore loogu lahaa maanta mar kale waxaan soo booqannay maamo Ikraan oo gurigan ku nool haysataan carruurta maamo imsa waa 10 oo haysata 10 carruura isla markaasina 6 bilood ee ugu dambeeyay uu laydhku ka goonaa lacag 2 bilood oo lagu lahaa darteed looga jaray isla markaasina magaaladan kulul ee xaaladeedu adag tahay aanay laydh haysanin ka waran noloshiina intii uu laydhku idinka maqnaa wallaahi waan iskala qabsanay nolosha intuu laydhku naga maqnaa markii aad laydhka haysateen iyo imika maxay ku kala duwan tihiin markaan laydhka haystay ciyaalka marwaxadaan u shideeyo laydhkan u shideeyo muxuu ahaayay imikana waa kulaylo barxadaasaan u soo saaraa ciyaalka way haddii iminka 2 bilood ee lagugu leeyahan kaa bixino waad laydhka soo ceeshato ma awoodi karaysaa bilaha dambe inaad iska bixiso waa laga yaabaa inaan bixiyo waan bixinayaa insha allah wataas lacagtii 2 bilood ee lagugu lahaa waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ilaahayna kuu gargaaro laydh jaban aad heli doonto insha allah bismillaahi kariim